kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbaad naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub maxaa kasoo kordhay khilaafkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamulada puntland iyo somalilan ee la xidhiidha arrimaha hawada soomaaliya ama maamulidda hawada soomaaliya maxaase ka jira in wadamada ingiriiska iyo maraykanka ay soo saareen digniino la xidhiidha amniga hawada soomaaliya iyo sidoo kale in la jabsaday mareegtii koowaad iyo tii labaad ee dowladda federaalku ay samaysay ee fiisaga soomaaliya laga qaadanayay ama laga dalbanayay xogihii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay arrinta la xidhiidha fiisaga iyo sidoo kaleeto isqaqabsiga maamulidda hawada soomaaliya ee maamulada puntland iyo somalilan oo isku dhinaca iyo dowladda federaalka ayaan soo qaadan doonaa. dhinaca kaleeto shir xasaasiya ayaa hadda ka socda waqti xaadirkan oo muuqaalkaan duubayo magaalada muqdisho kaasoo u socda guddiyada ay qusayso arrimaha hawada soomaaliya sida guddiga duulistiya hawada, guddiga arrimaha dibadda, guddiga amniga iyo sidoo kaleeto guddiyo kale oo ka socdo shirkadaha maamula garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ama guud ahaan hawada soomaaliyaba iyadana waa soo qaadan doonaa. dhinaca kaleeto puntland ayaa ku dhawaaqday in lagu celiyo hawada soomaaliya shirkadda caalamiga ee cow ee waagii hore maamuleysay hawada soomaaliya, taasoo ay sheegeen weliba in hawada soomaaliya dhaqaalaha ka soo baxo sidii horey loogu qeybsan jiray loo qeybsado, taasoo ahay 3 meelood oo loo qeybsan jiray dowladda federaalka iyo sidoo kaleeto maamulada puntland iyo somalilan. waxay sheegeen labada qaybood oo kaliya 3daas qaybood oo kaliya in loo qeybsado 3 meelood in loo qeybsado oo dowladda federaalkuna qaybteeda qaadato, puntlandna qaybteeda la siiyo, somalilandna qaybteeda la siiyo. haddaba arrintaasi suurtagal ma tahay? xageese ayay puntland ku hilmaantay maamul goboleedyada kale ee dalka? hawada soomaaliya ma puntland, somalilan iyo xamar ayaa mas-uulka? iyadana hadalkaasi oo wasiirka warfaafinta uu soo saaray maanta ayaan soo qaadan doonaa hadduu alla idmo. soo dhawaada idinkuna aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga. waayahay 48 saacii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayay arrinta la xidhiidha fiisaga. maamulada puntland iyo somalilandna propaganda badan ayay suuqa soo geliyeen oo ay leeyihiin hawadii soomaaliya, jamhuuriyaddii somaliland baa adkaatay, jamhuuriyaddii somaliland baa ka adkaatay, dowladda federaalka candhada dhulka loogu dhuftay, hawada jamhuuriyaddii baa maamulaysa, fiisagii baa la jabsaday, mareegtadii koowaad iyo tii labaadba waa la jabsaday, macluumaadkii oo dhan baa la xaday, maraykan baa wax soo saaray, digniinaal soo baxay, ingiriis baa soo baxay, hebel baa soo baxay, kan baa soo baxay. arrimahaas shalayna waan ka hadlay oo muuqaal kale ayaan uga hadlay oo weli baan idinla wadaagay caddaymo dad safrayo hargeysa ku socday oo garoomada ingiriiska lagu xanibay oo weliba la celiyo tigidyadii ay ka khasaareen. taa waan idinla wadaagay. arrinta la xidhiidha maamulidda hawada soomaaliya, dowladda federaalka ayaa maamulaysa, waxbana kama jiro in shirkadaha fly dubai iyo sidoo kaleeto ethiopian airways ay diideen dhaqangelinta dadka ay soo qaadayaan inay qaataan visa ama la weydiiyo visa. waxba kama jiraan weeye. visa ayay weli shirkaduhu qaadayaan oo dadka qaadayaan. maraykanka iyo ingiriisku warar ay soo saareen baa jira oo la xidhiidha in la jabsaday mareegtadii visaga ee internetka, in la jabsaday oo macluumaadya lala baxay. mar bay soo baxday balse warkaasi waa dhaboobi waayey. dowladda federaalku hadda waxay iskugu yeedhay shir degdega ayay iskugu yeedhay oo ay iskugu imaadeen madaxda ay qusayso ama dhinacyada ay qusayso maamulidda hawada soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasaaradda duulistiya hawada iyo sidoo kaleeto wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya. guddiyada amniga ayaa iyadana qayb ka ah. shir marka xasaasi ah oo weliba saacado ka hor bilowday ayaa ilaa iyo hadda ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. waxaa aad loo gorfaynayaa sidii loo adkayn lahaa maamulidda hawada soomaaliya, isla markaana meesha looga saari lahaa sheegashooyinka maamuladan iyo sidoo kaleeto carqaladaynta iyo propagandadan ay hawada soomaaliya soo geliyeen. waa maamulada puntland iyo somaliland. puntland dabcan propagandada somaliland bay faafiyaan iyagu. somaliland waxbay la imaataa, waxay tirahdaa intana wataa hawada halkaasaan saa ka yeelo rekoordhay meel dhigataa iyo gacmo iyo shaashad weyn bay derbiga ku xidhatay.
puntlandna intaas bay u faafisaa oo propagandaday u faafisaa propagandaduna puntland aad iyo aad bay maamulada kale ee dalka uga horeeyaan dadka waxa weeye maamulka puntland si kastoo noqotaba shir degdeg ah hadda socda waxaana looga arinsanayaa sidii meesha looga saari lahaa sheegashooyinka maamulkaasi sidii loo adkayn lahaa hawada Soomaaliya loo ilaalin lahaa amnigeeda sidii waxa weeye dhaatadan waa la jabsaday la leeyahay naftirkeeda loo adkayn lahaa meesha looga saari lahaa propagandada iyo sidoo kale to aamin baxa dadka soo safraya ee markaasi Soomaaliya u soo safraya oo run ahaantii diblomaasiyiinta xataa ay ku jiraan iyo dad waxa weeye khubaro ay ku jiraan sidii waxa weeye meesha looga saari lahaa cabsi la xidhiidha in la jabsado amaba waxa weeye la fashiliyo qorshahan cusub ama systemka cusub ee dawladda federaalku ay soo rogtay ma aha oo kaliya e-visa inta naftigiisa oo aad iyo aad qalab u fiican ama hanaan u fiican oo adkaynaya nidaamkan e-visa-ga qayb ka noqonaya ayaa naftirkiisa la rabaa in marka dib u eegis lagu sameeyo waxaan la leeyahay Mareykan ba wax soo saaray Ingiriis baa soo saaray Ingiriiska iyo Mareykanku digniinaha ay soo saareen way iska cadeen Ingiriisku waxay dhaheen muwaadiniintayda safraya ee Soomaaliya u safraya har raacaan habraacyada iyo sidoo kale to fariimaha yaala garoomada Ingiriiska ay ka baxayaan iyo garoomada caalamiga oo diyaaradaha ay raacayaan ha iska fiiriyaan oo ha qaataan e-visa oo nidaamka ha raacaan baa lagu yiri Ingiriisaas weey Mareykankuna shaqaalihiisa iyo wixiisu u digayay oo uu lahaa waxa weeye sida ha yeelan shaqadana ha lagu soo noqdo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dib u fasaxday shaqadii magaalada Muqdisho safaaraddu ay ka waday oo dhowr bilood ka horba la fasaxay shaqaalaha arrimo cabsi markaasi gashay si kastoo noqotaba hawada Soomaaliya waa safe wixii propaganda waa baab kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud weeye amar wuxuu ku bixiyay in wasaaradda duulista iyo hawada iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo laamaha amniga iyo shirkadaha maamula ee qadaraasyada lagu siiyay arrimahan la xidhiidha e-visa-ga iyo sidoo kale taabagelinta qorshayaasha cusub ilaan dawladdu meel walba iyadu gacan kuma haysto karto waa inay waxa weeye ay meelo u soo martee inay waxa weeye ay adkeeyaan oo isku xidhnaan ay sameeyaan oo ay joogteeyaan taabagelinta iyo adkeynta amniga hawada Soomaaliya oo aan carqaladaynin oo shirkadahana lagu qasbo ama lagu amro inaysan soo qaadi karin hal qof oo aan wadanin e-visa dalku galka Soomaaliya waxa 24 saac ugu dambeeyay baraha bulshada la wareejinaya Hargeysa waxa loo fasaxay iyo Berbera ayaa loo fasaxay fiisaha dalku galka oo inay ka qaataan on arrival ay ku qaataan arintaas waxba kama jiro ma jirto sabab la yiraahdo Muqdishona e-visa ha soo dalbadaan garawana e-visa ha soo dalbadaan Berbere iyo Hargeysana on arrival ha ku qaataan Berbere Hargeysa ma wadan kaleeta adaan ku weydiinay ma wadan kala waa propaganda aan sal iyo raad lahayn oo xataa dadka tabinaya iyo kuwa faafinayaba aysan fahmaynin xataa waxa iyaga ku soo noqonaya ma dhici kartaba Berbere Hargeysa on arrival ha ku qaataan waxa weeye Garowe iyo Boosaaso iyo Xamarna iyo Kismaayana ha ku soo dalbadaan online xagee waxaasi ka jira see ku dhaqan galaya suurtagal maaha taana iyadana waa propaganda asaliya raad lahayn dhinaca kale Puntland waxay sheegtay oo maanta ay ku dhawaaqday in lagu wareejiyo hay'adda ECAW ee hawada Soomaaliya maamuli jirtay in lagu wareejiyo oo dib loogu celiyo wax dhowr iyo 10 sano ka hor la soo wareejiyay oo Soomaali ay lahayd oo Soomaaliya lagu maamulayo bal aqli darrada iyo waxa weeye fikir la'aanta nin dhan oo wasiir intuu la soo istaagay wuxuu leeyahay ECAW hal lagu wareejiyo dib hal loogu celiyo waxa kale oo inta uu ku daray oo uu leeyahay 3 meelood ha loo qaybiyo kharashaadka hawada ka soo galaya Soomaaliya ka soo baxaya 3 meelood baa loo qaybsan jiray waagi hore 3 meelood waa in loo qaybsado 3 meelood hadii loo qaybin jiray oo xaq dadka cuni jirtay ma sidii baa la ahaanaya markii 3 meelood loo qaybsado oo la yiraahdo dawladda federaalka iyo Puntland iyo Soomaaliland sidoo soo sheegay 3 ha loo qaybiyo hawada Soomaaliya ma 3 saale aw maamulada kale maamul goboleedyada kale dalka hawada ayuu kula mala Sooma maamulayaan waxyaabaha maanta khilaafka uu ka taagan yahay waa aqli xumada noocaas oo kale iyo fikir la'aanta iyo aqoon darrada iyo xaasadnimada
mas-uuliyiin badan dad badan oo siyaasiyiin oo mas-uuliyiin iska dhigay ka dhex buuxdo wey say ku suurtagelaysaa meeqa maamul goboleed baa jira meeqa maamul goboleed baa dalka ka jira kuwa kaleeto haddii saddexda labada maamul goboleed wax laga siiyo dowladda federaalkana inta kale ay iska qaadato xamar lagu maamusho kuwan kale maxaa yow xaggay wax u doonanayaan suurtagalse may noqoni waa hadal marka la iska yidhi puntlandna ceeb bay ku tahay arrinta noocaas oo kale ah in lala soo fadhiisto oo warbaahintiinta loo yeedho media lasoo mariyo oo la yidhaahdo hay-adda ikaw hawada ha celiso sidii hore ee lagu keenay hawada ee lagu qaybsan jiray haddaan lagu qaybsanaynin oo aan loo qaybinaynin xamar garawo iyo hargeysa haddaan loo qaybinaynin ha la celiyo waa wasiir caydiid waxa sidaa ku hadlaya waa ninkii waxa weeye tolkii kasoo fallaagoobay ee dadkiisa u hub urursanaya waan laynaynaa waxa weeye maamulka waqooyi bari baan ku duulay maalin walba waxaad aragtay iyo afxumadaad aragtay la fadhiya weye ninka sidaa dhahayo waa maxamed caydiid dirir baa la dhahaa wasiirka warfaafinta ee deni weye deni baa ninkaas inuu dadka aflagaadeeyo oo cacaayo besa meesha loo dhigtay waayahan dambe waxaa soo baxay wasiiro lagu xulanayo inay dadka aflagaadeeyaan oo qofkii hadlaba u jawaabaan oo qof walba caayaan oo qof walba aflagaadeeyaan wasiiro abaa soo baxay oo waaba la raadsanba ninka madaxweyne maamul goboleed noqda guuba raadinba yaa dadka iyo cacaayi kara yaa dadka iyo aflagaadeyn kara waagii hore waxaa la dhihi jiray 10 sano hore waxaa la dhihi jiray madaxweyne hebel youtuber buu samaystay oo kugu tiktok wuxuu samaystay tiktok ma jirine warbaahin hebel buu wax siiyay oo waxba la dhihi jiray hadda waayaha wixii way ka tagtay hadda waxa weeye wixii way ka tagtay wasiirada loo magacaabanba dadka inay caayaan waa maxamed caydiid oo kale ayaa u jooga Somaliland kuwa dhowr ah iyo meel dhigtay inay dadka caayaan oo dadka u jawaabaan oo aflagaadeeyaan buu cirana dhigtay waa arrimaha la yaab kale waayahan soo kordhay weeye waynu eegi doonaa hawada waa very waxa weeye waa peaceful weeye amni weeye hawada Soomaaliya dowladda federaalka gacanta ku haysa wixii ka khaldamanaya iyada naftirkeeda fartan ku fiiqayna shir xasaasi ah socda wixii ka soo baxana muuqaaladeena dambe qofka ugu horeeya ayaa noqonaysaan insha Allah ta'ala